أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta waa 28 bishii 12 sanadii 2020. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan Soomaali weyn. waxaan sii salaamayaa Soomaalida Ogaadenya. waxaan gaar ahaan sii salaamayaa xubnaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya. waxaan ku bilaabayaa halkan waxaa jirta xoguhu bini'aadanku waa xukun nool xilligan xaadirka ah. waxaa loo bixiyey jiilka hadda jira waxaa loo bixiyey wax la yiraahdo information generationka xogta ayaa loo bixiyey. sababta loogu bixiyey waxay tahay sidiisaba hadda bini'aadanku sidiisaba xukun nool unbuu ahaa. marka ma rabo inaan ku sii dheeraado, waxaanse rabnaa inaan isdareensiino sideedaba bini'aadanka qof dan leh ama hay-ad dan leh oo danteedu socoto ayaa saacad walbaba waxay curiyaan ajendayaal استراتيجي أما معنيه أجنديال حل دو أما أجنديال ساعة الله أما أجنديال دقيقة يسكت والبابا شقينا هي سدا أوجد مرة والبعض مركان أنو هلا هيو وحن كهلا هيا وحيت هاي وسؤالش جميسي مدو إثيوبيا يو سؤالش سومالي أوجادين يلا جميستو سومالي أوجادين يلا جميستو وحيلها حرنا مطون nimandoon jeedaasi marka waa inuu san u dayma la'aanin, waa inuu xog helaa marka xogta hadda ugu dambaysa soo tabinaya waxay tahay qoomiyadda axmaarada oo samaysatay hogaamiyahaasna uu iska dhaadhicinayo inuu yahay hogaamiye ruuxi ah. baryahanna waxaaba soo baxdayba hogaamiye ruuxi ah wax la yiraahdo. macnaheedu waxaan ka wadaa meesha ayada waxay tahay marka haliyay ma jiro. hadduu haliyay jiro waa haddii uu dhibaatooyinka ummadaas uu xal ka gaadho. sababta waxaan ka wadaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya lama dhihi karo maanta waa haliyay, wuxuusan haliyay u ahayn. waa markii koobaade wuxuu ka mid ahaa rejimkii EPRDF. qoladii EPRDF ahaa ina ilay ka mid ahaa maanta xabsi bay ku jiraan. isagii ka midka ahaana wuxuu leeyahay waxaan ahay the part of solution of the geeska African ahay buu leeyahay. sida awgeed taasi waa marka waa been weeyaan, waxay been ku tahay, waxba kama jiraan. sida awgeed hogaamiye ruuxi ah ma aha, waa shakhsi ay soo abaabusheen, soo cursadeen, ay rabaan inay caqabadaha kaga gudbaan qoomiyadda axmaaraduna falsafada ay aaminsan tahay waxay tahay inay tahay Itoobiya axmaaradu haykalkii ugu sarreeyay oo wax ka sarreyn kara inuusan jirin, wax la sinmi karaan inuusan jirin. sida awgeed eegadan qodobka in laga tabaabushaysta lagama maarmaanka tahay waxay tahay xilligan xaadirka ah wuxuu ugu magac daray dagaalkii uu ku qaaday TPLF abi oo EPP matalahaya waxa la yiraahdaa barwaaqa sooreynta macna Itoobiyada 113 milyan inuu Soomaaliya uu ka barwaaqeeyo uu u socdo. himiladiisa fogina ay tahay maqraatimo doonto ay tahay. xilligan xaadirka ah wuxuu ugu magac daray oo beesha caalamka u muujiyay inuu qaaday ole soo celinta kala dambeynta sharciga, nidaam dawladnimaan soo celinaya originally ah. markaas kadib ayaan beesha caalamka su'aalaha ay ila yeelanaysa ayaan rabaa inaan ka jawaabo. intaan la gaadhin kal hore xilliyada ka mid ahaa uu sirar qabanayay waa kii uu ku tilmaamay in ay Soomaalidu ay tahay qoomiyadii la dagaalamaysay
gumaysigii EPRDF taliskii EPRDF sida awgeed waan soo afxidhnay horuu u yidhi sida awgeed TPLF waxaa uga daraa systemkii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya ee jawaxo sida awgeed kal horuu yidhi waan soo afxidhnay sida awgeed nin aragtidiisii saa u caddaysanahaya sabab aad adigu ku abaalmarisid oo aad horumarkiisa u soo dhawaysid oo aad ku taageertid oo gumaysiga madowga Itoobiya horumarka u gaadhay beesha caalamka inuu horeyna u sheegnay ee ah abaalmarintiisii inaad ku abaalmarisid oo ugu hambaliyaysid waa su'aal contrary ku ah su'aasha gubernimo doonka sida aan soo dhaadhaco qodobka ugu muhiimsan ee inuu uga digahaya marka waxay tahay Soomaalida ogaadenya gaar ahaan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya yaan loo dayma la'aanin inaynu gumaysiga madoobi uusan ku siinaynin facilitation iyo horumarin iyo miisaaniyad iyo saldhig iyo xafiisyo aad ku gaadhid himiladaadii fogeed ee ahaa su'aasha qadiyadda taas yaan lagu riyoonin sida awgeed gumaysigu waa gumaysi wuu ku gumaystaa waana mid casri ah xilligan xaadirka ana su'aasha doorashooyinka yaan loo dayma la'aanine wuxuu yidhi ma jirahayo wax la yidhaahdo Liberation Front ONLF Ogaden National Liberation Front Oromo Liberation Front wax la yidhaahdo Liberation Front kama soconayo sida awgeed Ethiopia midnimadeedu waa muqadas meesha ayada ana EPP falsafadeedii sidii falsafadii EPRDF ay 28 sano u shaqeynaysa ayay falsafadan iyo fikradan la rabaa future-ka soo socda inuu shaqeeyo oo waliba kan wuxuu dheer yahay waa mid regional policy ah oo ah khayraadka ceegaaga Soomaaliya ay himiladiisa fog tahay Itoobiya oo dhan taana way wada taageersan yihiin isaguna waa buligii ay soo qaateen meesha waxa weeye waxaad ku garanaysaa dhulkeena khayraadkiisa wiilka yare yaanyada ninkastoon xabuub maqlahaye ka sameeyay deegaanka jigjiga gobolka faafan agagaarka jigjiga ka sameeyay beeraha hadda waana markaatimo doonto wadankan khayraadkiisa wabiyadiisa xoolihiisa nool macdantiisa shidaalkiisa waad aragtaan sidoo kalena Soomaaliya markii waagu bariyo xeebta loogu imanaya malayga oo sidiisii ah adduunyada meel uu ka suurtoodo ma jiro kala dhaweyto maal dhaweyto aan sheekaysanayna su'aal global policy oo khayraadka wadanka laga wareystay waa mid ay ama kaageen dadka markaan u soo bandhigay sababtoo ah markii ay baddu habeenkii soo kacdo subaxii xeebta ay noqoto inkastoo awaamirta eebaha inay ku socoto baddu markay ka tagto xeebta waxa loogu imanayaa kalluun fresh sida awgeed waa meesha uu ninkaasi ku riyoonayo riyadiisuna ay tahay sida awgeed yaan laga digtoonaado waxaba yaraatee la yiraahdo doorashooyin oo adiga oo nalefa ay Itoobiya oo goshay ma jiro soo noqdo wanaagsan gumaysi madowga Itoobiya ha dhaco jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya ha xorowdo Soomaalida ogaadenya ha xorowdo soo noqdo wanaagsan waanigu Axmed Sucaad waas Maxamed wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh